arankayga inaan usii shaqeeyana diyaar baan ahay farxad gaar ay gelinaysa iyo dareen gaar inaan laba madaxweyne mar kale sidaad u aragtaa marka dhinaca siyaasadda la iska taago xusbigii wadan iyo dagaalka idinka dhaxeeyay waxa weeyaan dagaalka siyaasadeed inuu mar kale ku cogto gobolkii inaad hoggaanka u sii hayso oo xilkaaga sii hayso macna noocee bay sameynaysaa waxay muujinaysaa furfurnaanta iyo dareenka xisbiga wadani siyaasaddiisa inaanay cogdad ahayn bay muujinaysaa inaanay ku dhisnayn hebel waxaasoo ahaa laakiin ay ku dhisan tahay yaa wax qaban karaya taasay muujinaysaa oo uu diran karayo midaan isaga la shaadhahayn shalay inuu cogton inaan isaga la shaadhahayn waxay muujinaysaa inaanu xisbigu ahayn xisbi cogdadeed inaanu xisbigu ahayn xisbi kala qaybineed inaanu xisbigu ahayn xisbi abtirin ku dhisanaya qadiyadda iyo shaqadiisa horta golaa dhexe xisbiga kuma jirin barasaabaduna kuma jiraan markiiga horena xubin kamaan ahayn laakiin de xisbigan ku tirsanaayo waanba u ololeynayay beeloodo hadeer iyo hayaanka siyaasiga waxaan ku shaqeynaya waa siyaasadda xisbiga wadani aadna marka hore waan isugu dhoweyn oo dad marka horeba aada u kala fog oo siyaasad ahaan markaad gobolka joogto wuu ka duwan yahay barasaabka wasiirka ikaadiyo barasaabka wasiirka wuu ka duwan yahay barasaabku wuxuu u taliyaa dad waxaa laga yaabaa wasiirku inta wasaaradiisa oo xukuumadda taabacsan buu tiriyaa laakiin anigu waxaan u taliyaa in muuse biixi maageysay iyo in ammaanaysay baan dhexdeeda ku jiraa markaa iskuwad baa iga dhexeeyey markayga horeba kumaan fashilmin iskuwadka dadka haddadan lafteedana waxaa iga go-an inaan iskuwad ku shaqeeyo oo aan bulshada kala qaybintooda aan aada uga digtoonaado doorka koowaad ee barasaabnimaduna waxay ku faraysaa inaad dadkan isku wado oo aadan qolo gaara iskala ula jaamayn xukuumaddii madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa siyaasadda ka soo fanantay barasaabka gobolka ayaa lagaa dhigay muddo dheer baad maanta xilka haysaa isbeddel baa dhacay isbeddelkaa qayb baad ka ahayd oo dee xukuumad baad ahayd taas baad ka tirsanayd waad qayb ka ahayd maanta 5 bilood 6 bilood kadib waxa weeyaan weli xilkii baad haysaa sidaad u aragtaa alxamdulilah rabbil caalamiin waa ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay arankayga inaan usii shaqeeyana diyaar baan ahay waayo waana u dhalin yarahay stilna waxaan isleeyahay inaad sii shaqeyso kumaad fashilmin inaad wax ku wanaajiyo ilaahay kula qabta mooyaane marka hadda dareenkayga weydiiso waa dareen farxadeed farxad gaar ay gelinaysa iyo dareen gaar inaan laba madaxweyne mar kale sidaad u aragtaa marka dhinaca siyaasadda la iska taago iyadoo xusbi xukuumiyo waxa weeyaan xukuumiyadii hal ugu tirinayay xusbigii wadan iyo dagaalka idinka dhaxeeyay waxa weeyaan xusbi ahaan marka la eego ama xukuumad ahaanba dagaalka siyaasadeed inuu mar kale ku cogto gobolkii inaad hoggaanka u sii hayso oo xilkaaga sii hayso macna noocee bay sameynaysaa waxay muujinaysaa furfurnaanta iyo dareenka xisbiga wadani siyaasaddiisa inaanay cogdad ahayn bay muujinaysaa inaanay ku dhisnayn hebel waxaasoo ahaa laakiin ay ku dhisan tahay yaa wax qaban karaya taasay muujinaysaa oo uu diran karayo midaan isaga la shaadhahayn shalay way noqon kartaa inaanu berri saa dambe wada shaad noqono laakiin inuu cogton inaan isaga la shaadhahayn waxay muujinaysaa inaanu xisbigu ahayn xisbi cogdadeed inaanu xisbigu ahayn xisbi kala qaybineed inaanu xisbigu ahayn xisbi abtirin ku dhisanaya qadiyadda iyo shaqadiisa imika haata xusbigii kulmiyaa waxa weeyaan dee lagu tirinayo mana huba inaad weliba golihiisa dhexe ka tirsanayd iyo in kale haatan marka shaqada qaranka aad u haysa laga tago xusbi ahaan ma xusbigaagii kulmiyaad weli ka tirsanta horta golaa dhexe xisbiga kuma jirin barasaabaduna kuma jiraan markiiga horena xubin kamaan ahayn laakiin de xisbigan ku tirsanaayo waanba u ololeynayay beeloodo hadeer iyo hayaanka siyaasiga waxaan ku shaqeynaya waa siyaasadda xisbiga wadani taan gobolka hadeer ku daadihinaynaana waa midaan u daba fadhino cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi siyaasad ahaan waxaan ku shaqeynaynaa anaga siyaasaddiisa qorshihii xisbiga wadani baan ku shaqeynaynaa aadna marka hore waan isugu dhoweyn oo dad marka horeba aada u kala fog oo siyaasad ahaan markaad gobolka joogto wuu ka duwan yahay barasaabka wasiirka ikaadiyo barasaabka wasiirka wuu ka duwan yahay barasaabku wuxuu u taliyaa dad waxaa laga yaabaa wasiirku inta wasaaradiisa oo xukuumadda taabacsan buu tiriyaa laakiin anigu waxaan u taliyaa in muuse biixi maageysay iyo in ammaanaysay baan dhexdeeda ku jiraa markaa iskuwad baa iga dhexeeyey markayga horeba kumaan fashilmin iskuwadka dadka haddadan lafteedana waxaa iga go-an inaan iskuwad ku shaqeeyo oo aan bulshada kala qaybintooda aan aada uga digtoonaado
doorka koowaad ee barasaabnimaduna waxay ku faraysaa inaad dadkan isku wato oo aadan qolo gaara iskala ula jaamaynin dadka qaar baa kugu dhaleelay inaad marka horeba waxa weeyaan waddan la shaqeynayso oo isu dhaweydeen gudoomiyanimadan waa dadka aan barasaabnimada fahansanayn waay barasaabka gobolka iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolku way kala duwan yihiin waa wax different de barasaabka gobolku waxaan gudoomiye u ahay ka kulmiye iyo ka wadani baan gudoomiye u ahaa siyaasaddan ku shaqeynaya aniguna madaxweynuhuna ii dirtay waa xasilinta gobolka madaxweynuhu wuxuu ii dirtay xasilinta gobolka lambar 1 doorka siyaasiga ee barasaabka laakiin shaqadii ololaha madaxweynuhu ku dirtay aad wadi shaqada ololaha taawan waa waxaan ku qaban karay laakiin midaan ku qiyaamayo dadkan oo aan doonayay inaan ku kala qaybiyo oo qoladaas waxa saatiino aan idima arki karo aan ku odhanayo ma ahayn ugu dambeyntii mudane gudoomiye anoo kaga mahad celinaynaa waxa weeyaan runtii waraysigaasi iyo weliba su'aalahaasi haladay galeen aad u yeelato waqtigaad maamuleysay waxa weeyaan gobolka Sanaag go'aankii kugu adkaa ee aad qaadatay ma xasuusataa Sanaag ninka jooga wuxuu yiri 20 jir mudug joogay ilaahay wixii qaranba Sanaag ninka jooga horta de go'aamo adag waxaan maleynayaa wiigan go'aan adag inaan qaatay soo marin ma jirin laakiin go'aamo si gaar ah khusaya way jiraan aan si gaar ah u xusuustaa waxaan kaaga xusu karaa de 23kii 2023 bishii May oo kale 12keedii dilba Caargaaba ka dhacay muwaadin baa ku dhintay ciidanka shacabka ciidanka booliiska baa loo talinayay arrin critical ah ayadoo laascaanood oo gubanaysa oo dagaal ka socdaan oo iyada laftoodu marxuum lagu dilay ka kacday marxuumka iyo marxuumkaasina isku reer hayaan waxay ahayd caqabado aad u adag bay ahayd iyo go'aamo adag oo qaraadh inaan ka qaadano ilaahay noogu sahlay inaan ku afjarno aanay sidii tii laascaanood nagu hinqan laakiin aan ilaahay noogu sahlay inay go'aamadan xilliga qaadanay iyo shaqada aan qabanay inay ku dego gobolka oo aan muddo ku sii shaqeyno muxuu ahaa go'aankaas go'aamada waxa kamid ahaa oo kale aaska marxuumka oo kale oo aanu maxaan ku raada ehelada isku maandhaafsanayn qaabkaan u maareynay waxa kamid ahaa la tacaamulida cidda uu marxuumka ka dhintay oo lafteeda weygaan u galnay ay qayb ka ahayd waxa qayb ka noqonayay iyada weygii aan ugu qancinay ciidanku ciidan ka soo horjeeda ee hub ula timaada inuu iska caabiyo inuu xaq u leeyahay qancinta aan ku qancinay waxa soo dhami go'aamo adag bay ahayn anu markii dambe xal lagu kalsoon yahay lagu wada degayaan ka gaadhnay magtiina marxuumkana dawladdu ku bixisay waliba si arjana markii dufaanig bay isla fahanteen in meesha la aaso hawshana waxa weeyaan xal ku dhameeyo aan xal ku dhameeyo marka weygan ku aasnay waxa ahayd go'aamo qalqalaad weygan ku aastina ku soo qaadeen weygan de go'aamo qalqalaad baa ahayd go'aan bad weydiisay hadda waxba ha soo sigelinay weygan dadka ula tacaamulayna waxa ahayd way kale ka sii qalaad oo mar bay nala gaadhaysay inaanu de baariso sameeyno ka qoto dheer oo baaris sharci baa taqaanay baaris xeer beegti lafteeda aan wax ku sameeynay ka waxa soo dhamaa jir waa tahay aad iyo aad mahadsantahay gudoomiye waa kaaga mahad celinaa gobolka Sanaag iyo guud ahaanba waxa weeyaan sida aad nagu soo dhaweysay intaba aad iyo aad mahadsantahay aad baa mahadsantahay aad iyo Seven Store isagaan ku saarayn oo kula saayirayo sixirkiisu kululayn ee orod Seven Store gaad waa sidoo ku leeyahay mulkiilaha Seven Store oo siiqad suugaamaysan macmiishiisa kula hadlay ku soo dhawaada Seven Store oo uga barateen adeegyo fiican imikana adeegyada uga barateen diisi laba laabaya oo qof kasta si delivery ugu geynaya meel kasta iyo markasta uu joogo taasoo heegan markasta weydii shaqaale firfircoon iyo adeeg hufan isagaan ku saarayno kula saayirayo sumcad iyo karaamo laha sixirkiisu kululay ee orod Seven Store gaad Seven Store saaxiibka danyarta iyo saaciidaha macmiilkiisa Seven Store waxa aad ka helaysaa nooc kasta oo ah adeega xaafadaada oo ay qayb ka yihiin raashinka iyo bagaashku dhammaan baahiyaha faamligaaga oo jumlad iyo tafaariikha
7 store waxa uu ku yaalaa wadada 150 khaasatan agagaarka istaankii hore ee basaska jijigaya waxaanu dhanka galbeed ka saaran yahay dhismaha jaamacadda Armis gaar ahaan kambaska freshka ee ku jeeda wadada 150 hore u gaadh 7 store faahfaahin kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda